ugu faraxsanahay in Professor Bayle loo magacaabo wasaaradda khaarijiya oo Soomaaliya waana nin aad ugu haboon oo fit ku ah oo xagga siyaasadda iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga isku xidhka ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad uga shaqayn doona kuna haboona in jagada loo dhiibo waxaan ugu mahadinayaa si gaar ah martii prime ministerka hadda maanta ee ragga noocaas xulay ee gartay sidaana taariikhda u bedelay haddii aan guud ahaan ka hadlo xukuumadda lagu dhawaaqay maanta xalay toon lagu dhawaaqay horta kulley mushkiladihii badnaa ee dawladda Soomaaliya haysan jiray way ka muuqdeen xalay sidii aan la soconay waayo in badan bay uu ishaysiyo macnaha conflict madaxtooyada dhexdeeda filla Soomaaliya sida warku soo sheegayaan uu jiray laakiin mar dambe waxa lagu guuleystay in la soo dhameystiro xubnaha wasiirada runtii maanta waxa aad uga dhex muuqda wasiirada la magacaabay wasiirka arrimaha dibadda oo loo magacaabay Dr. Bayle oo ka soo jeeda gobolka runtii anagu waxaan nahay dadka reer awdal ee dhadhamiyay wax qabadka Bayle waxaan ku ognahay Bayle waa ninka iskuulka boardinga ka dhisay gab oo ku taala Garbadar iyo Luqaynta u dhaxaysa runtiina si tabarucaad oo waqfiya ilaa maanta lagu dhigto oo la jiifsado iskuul boardinga taas way markaa waxaan leenahay waa nin aqooyahana waa nin booska u qalma waa nin reer awdal matali kara oo laga dheehan karo wax qabadkooga iyo kartidooda iyo aqoonta lagu yaqaan sidaa darteed aad baan u hambalyeynaa doctor caaway Soomaaliya ee Dr. Bayle oo hambalyeynaya isagoo gaar ahaan ka soo jeeda gobolka Awdal السلام عليكم aad u hambalyeynaya golaha wasiirada ee cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo ah shakhsi aad iyo aad u wanaagsan kana soo bixi kara booska loo magacaabay kartideedii iyo aqoonteediina leh kana soo jeeda gobolada Awdal Saral iyo Gabiley waxaan bariyo ayaan lahay wasiirka arrimaha dibadda waxa kale oo aan hambalyeynaya ra'iisul wasaaraha cusub ee dawladda Soomaaliya waan anagu haddaan nahay reer Awdal Gabiley iyo Saral ama aqoonsanay ra'iisul wasaarihii ugu dacsanaa ee abi Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya waxaan lahay hambalyo ayaan lahay golaha wasiiradana dhamaantood waan hambalyeynaya magacaygu waa Maxamed Cabdi Ahmed Guleed haddii aad weydiisay su'aasha ah sidee u aragtaa in Dr. Bayle laga dhigay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya runtii waxaan ka oran lahaa doctorku waa uu qalmaa xilkaasina waxaan leeyahay ilaahay ha u fududeeyo waana nin wax ka bedeli kara arrimaha Soomaaliya iyo siyaasadda Soomaaliya saasan qaba xagga wax qabadkiisa kulley wuxuu ahaa nin xagga wax qabadka ku wanaagsan oo inaad maqasho mooyaan dugsiga sare ee la yiraahdo Gab Secondary Boarding wuxuu ahaa ninkii abaabulay ee sameeyay dugsigaasi wax weyn ka taray runtii saas daraadeed waxaan qabaa inuu wax badan ka tari karo siyaasadda haddan ka taagan Soomaaliya islaam filay su'aasha aad weydiisay Dr. Bayle oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya aad baan ugu soo faraxsanahay amba aad baan ugu soo dhaweynaynaa inuu noqdo wasiirka arrimaha dibadda waayo siyaasadda Soomaaliya waxaan u maleynayaa inuu wax ka bedeli doono amba wax rayadu qalloocsan uu ka simi doono ama Soomaaliya ay noqon doonto dawladaha la qaanshaan qaada siyaasadda caalamka ka hadlo xagga gobolka Awdal wax qabadkiisii uu ka geystay amba waxyaalo badan uu ka dhisay oo lagu xasuusan karo mar kasta oo xilli kasta ayaa jirta gaar ahaan haddaan tusaale kaaga soo qaado iskoolka Gab ee boardinga ee xeebta ku yaala gobolka Awdal iskoolkaas uu yahay gudoomiyihii aasaaska qabanqaabiyaha amba gudoomiyaha guud ee iskoolka ahaa ee jaaliyadda iskoolkaasi sida ilaa imikana u shaqeeyo ilaa xilligaas oo maanta ay sanadka cusub ay tahay inuu shaqeeyo aad baan ugu faraxsanahay wax qabadkiisa amba dhalinyarteeda gobolka Awdal aad baan ugu soo dhaweynaynaa inuu noqdo wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya sidoo gobolladeeda amba dhinacan Soomaaliya wax uga qabtay oo kale inuu wax uga qabanayo ama siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya inuu la jaan qaadi karo ayaan u malrajeynaynaa ama fikradayda ka aaminsanahay fikirkayga ku aadan wasiirka arrimaha dibadda ee maanta xalay toolo la magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli oo magacaabay fikirkayga ku aadan golihiisa wasiirada waxaan jeclaan lahaa inaan si khaas ah uga hadlo qofka shakhsiyadiisa ama wax qabadkiisa aan garan karo waxna aan ka rajeynayo inuu wax qaban karo hadaf badan oo nuleenahay يعني محمد بيلة ويسير كارمها دبدو دكتور محمد بيلة
oo gudoomiyaha bangiga Afrika hore u soo haan jiray waa nin wax qabadkiisa la taabsan karo oo boordanka ugu wanaagsan ama tayada ugu fiican leh ee wax laga barto dalka oo inoogu yaala yani hoose dhaxamid la secondary leh gab ninkii ka furay wax qabadkaasi lahaa weeyaan yani wax qabadoon rajaynano oo uu qaban karo waa waxa nin aan garan karno inuu yahay nin aqoon leh tarun uu ku mahadsan yahay magacaabista ninkaasi waanu ku soo dhaweynaa ku taageersanahay. Assalaamu calaykum.